Hello YouTube. Please comment below, like and subscribe. You'll know what to do. Well, until then, take care. codkaas ay isku wada ruxayaan ma ahan heesa ay qaadeen fanaaniinta Shakira, Selena Gomez, Justin Bieber ama fanaaniinta kale ee dunida caanka ka ah. Waa heesta ay ku luuqeyso fanaanadeena Nimco Habi. Isma aysan oran 4 sano kadib ayay heestaada ruuxi doontaa dunida. Mana jirto cid filaysa in heesta isii nafta ee ay qaado fanaanadeena Nimco Cilmi Cali Xasan Nimco Habi ay lama filaan ku soo rogaal celin doonto iska daa bulshada ee xitaa fanaanada midaasi ma aanay aaminsaneen. Shanta qaarad ee dunida ayay heestani hadda haysataa. Masraxyada ayay ruuxaysaa waxaana laga daara fagaarayaasha waaweyn ee ay isugu yimaadaan kumanaanka qof. Laguna qabto bandhig faneedyada. Guri walba ayay ka shidan tahay. Qof walbaana heestan reaction-keeda ayuu iska soo duubayaa. Fanaaniin caan ah iyo jalayaal dunida magac ku leh ayaa heestan isku soo duubay iyaga oo ku jaasaya. Waxaana ka mid ah fanaaniintaasi fanaanada lagu magacaabo Cardi B oo ka mid ah fanaaniinta ugu caansan ee waddanka Mareykanka isla markaana soo qaado heesaha raabka. Nimco Habi heesteeda waxa ay hadda gaartay 3 hees ee TikTok loogu falcelin badan yahay. Heestan ayaa hadda kor u qaaday magaca Soomaalida, balse waa iska nasiib oo wax la filaya ma aanay ahayn. Heesaha sidan caanka u noqda ee dunida fanaaniinta qaada waa kuwa milyaneera, waxaana la filayaa in Nimco ay dadkaasi ku biirto maadaama hadda xuquuqda heestani loo ogolaaday. Nimco ayaa 29kii bishan Oktoobar waxa ay samaysatay ciwaan TikTok si halkaasi loogala socdo, sidoo kalena si gaar ah loogu barto bartaas. 2 cisho gudaheed waxa uu marayaa ciwaankeedii cusba 264,800 oo followers ah. Waxa ayna haysataa 2.4 milyan oo laag ah. Ma jirto cid ay raacday. Ku darso tirada aan hadda sheegayno wax badan ayaa iska sii bedeli kara maadaama ay cirka isku soo shareerayaan taageerayaasheeda cusub ee dunida. In heestan ay si weyn u kacdo waxa kaalin mug leh ka qaatay Jangis oo ah shakhsi Soomaaliyeed oo sameeya barnaamijyada madadaalada, kaas oo bartiisa TikTok ay ku xiran yihiin 3 milyan oo followers. Sidoo kalena dunida caanka ah. Waxaana shakhsigani uu soo bandhigay heestan isaga oo ku jaasaya, taas oo qayb ka qaadatay in dadka dunida iyaguna ay ka helaan heestan Nimco Habi. Nimco ayaa hadda heshiis la gashay shirkadda Universal Records oo ah shirkad weyn oo soo saarta muusiga iyo dhammaan adeegyada la xiriira muusiga. Arrintan ayaa noqonaysa mid u sahlaysa in ay Nimco Habi heesteeda iyo muusigeedaba lagu iibin doono dhammaan meelaha heesaha caalamka lagu iibiyo. Sidoo kale xuquuqda heesta ayaa hadda waxaa lahaanaya Nimco Habi iyo shirkadda ay heshiiska la gashay. Waana meesha fursadda dhaqaalaha ay ka heli doonto Nimco. Nasiibka ayaa ah wax aan kula tashan lana samaysan sidoo kalena aan la kasban karin. Qof walbana mar ayuu soo maraa, markaasna waa sida uu uga faa'iideysto. Nimco oo hadda cagta saartay wadadii ay fankeeda ku horumarin lahayd, ku heli lahayd dhaqaale, ugana bixi lahayd busaaradda, ayaa la arki doonaa sida ay uga faa'iideysan doonto fursadan albaabka u soo garaacday. Ku darso Nimco waxa ay hadda yeelan doontaa saaxiibada danta oo daruufta ama xilliga aanu jaabka buuxin ka durki jiray. Ileen waa bini aadam xaalkiisa. Nimco oo qudheeda la ama kaagsan waxa soconaya ayaa ku wareersan qaadashada talooyinka kumanaanka saaxiibada cusub ee ay u soo jeedinayaan. Haddaba daawade, waa maxay aragtidaada? Fadlan qaybta hoose commentiga inoogu reeb. Sidoo kale muuqaalkan inoo share garay si uu dad badan u gaaro.